kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu uga hadli doono taariikh nololeedka madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre. taariikh nololeedka Generaal Maxamed Siyaad Barre waxa idin la socodsiin doona anigoo Cusmaan Cabdulla Cusmaan. Maxamed Siyaad Barre waxa uu ku dhashay magaalada Garbahaar ee xarunta gobolka Gedo 6 bishii Oktoobar sanadii 1919 si gaar ah markaynu eegno taariikhda Maxamed Siyaad Barre tuuladii uu ku dhashay waxa la yiraahdaa Shilaafo. waalidiinta Maxamed Siyaad Barre ayaa waxa ay geeriyoodeen isagoo 10 jir ah waxbarashadiisa dugsiga hoosena waxa uu ku soo qaatay magaalada Luuq ee gobolka Gedo. intaasi kadib ayaa Maxamed Siyaad Barre waxa uu u wareegtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya si halkaasi waxbarashadiisa dugsiga sare ugu dhameyso waxaana xilligaasi magaalada Muqdisho gacanta ku hayay gumaystihii Talyaaniga. Maxamed Siyaad Barre ayaa sanadii 1940 waxa loo qaaday tababar ciidan waxaana uu tababarkaasi ka gaaray darajadii ugu weyneed ama ugu sareysay ee qof Soomaaliya uu ka gaaro ciidanka. sanadii 1950 markii ay qaramada midoobay la wareegtay maamulka iyo waliba gacan ku haynta dhulka Soomaaliyeed oo ay xilligaasi dawladda Talyaaniga u wakiilatay ayuu Maxamed Siyaad Barre fursad waxa uu helay in loo qaado dalka Talyaaniga si halkaasi tababar ciidan ugu soo qaato. Maxamed Siyaad Barre ayaa markii uu dib ugu soo laabtay dalka waxa loo magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. dhinaca qoyskiisa Maxamed Siyaad Barre haddii aynu si kooban uga hadalno Maxamed Siyaad Barre ayaa waxa uu guursaday 2 xaas waxaana lagu kala magacaabi jiray Dalyad Xaaji Xaashi iyo waliba Khadiijo Maalin. Maxamed Siyaad Barre caruurtiisa ayaa waxa kamid ah Maslax Maxamed Siyaad Barre, Faaduma Maxamed Siyaad Barre iyo waliba Deeqa Maxamed Siyaad Barre kuwaasi oo wali u taagan in uu sii jiro magaca aabahood. Maxamed Siyaad Barre ayaa waxa uu ahaa qof si weyn waqti u siiyay caruurtiisa inkastoo shaqadiisa ay aad uga tira badnayd. Maslax Maxamed Siyaad Barre ayaa waxa uu 2 jeer isku soo sharaxay jagada madaxtinimo ee dalka Soomaaliya waana uu ku guuldareystay. bal markana aynu eegno sidii uu ku noqday madaxweynihii Soomaaliya iyo waliba xilligii kacaanka. What
maxamed siyaad barre ayaa xukunka madaxtinimo ee dalka Soomaaliya waxa uu la wareegay 21 Oktoobar sanadkii 1969 maalin kadib markii la dilay madaxweynihii ka horreeyay ee Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo lagu dilay shirqool loogu dhigay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. waxaana maxamed siyaad barre uu ku qabsaday xukunka dalka Soomaaliya si afgambiya maadaama xilligaasi uu ahaa taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. waxaana maxamed siyaad barre uu ku dhawaaqay xisbigii hanti-wadaagga kacaanka Soomaaliyeed waxaana arrinkaasi ku gacansiinayay oo la garab taagnaa shakhsiyaad aad markaasi ay isugu dhawaayeen xagga siyaasadda kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen Salaad Gabayr Kadiye iyo weliba Jaamac Kaarshe. maxamed siyaad barre iyo xubnihii xisbigiisa ayaa waxay ku dhawaaqeen in magaca waddanka laga dhigo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya waxaana uu amar ku bixiyay in xabsiga loo taxabo dhammaan xubnihii ka tirsanaa dawladdii ka horreysay ee Cabdirashiid Cali Sharmaarke. waxaana uu sidoo kale maxamed siyaad barre mamnuucay dhammaan xisbiyadii mucaaradka ee dalka ka jiray xilligaasi isagoona intaasi kadib la baxay magaca Guulwade. golihii kacaanka sare ee xilligaasi ayaa waxa uu markaasi sameeyay mashruucyo fara badan oo magaalo iyo waliba baadiyaba ay ka wada faa'iideysteen. waxyaabihii ugu waaweynaa ee lagu xasuusto dawladdii kacaanka waxaa ka mid ahaa sanadkii 1974 markii loo doortay maxamed siyaad barre inuu noqdo hogaamiyaha ururka midowga Afrika. maxamed siyaad barre ayaa sanad waliba 21 Oktoobar waxa uu sameynayay fantasiyo lagu weyneynayo maalinta uu xilka la wareegay. waxaana daawadayaal idiin soo gudbinaynaa qaar ka mid ah fantasiyadii uu sameeyay 21 Oktoobar ee lagu xusayay maalintii uu xilka la wareegay maxamed siyaad barre. guulahan markaan ilaahdo dabaaldegan waxaan ugu yeeri karnaa kii ugu wanaagsanaa oo la sameeyo iyo ciidamadii iyo ardadii iyo macallimiintii iyo shaqaalihii iyo iskaashatooyinkii iyo hooyooyin ardadan aad u dhaliya oo aan moodo waxaan ammaan iyo bogaadinba u soo jeedinayaa wasaaradda iyo xisbiga macallimiintii waalidiintii iyo ardada alaahiska oo u mataleen wixii la siiyey si cad waan qadahay. waxaan ilaahay ka codsanaya in sanadii dambe sidaan iyo si ka fiican qoladii ku ciidda inaynu noqonno kulligeenna nabadina u gaarsiin. waxaan shakuusan ku jirin qabaa waa gaaraabaalay galabta inkastoo in yar ay yihiin 16 dad yar weeyaan markii loo eego ardada xamar aan isleeyahay waxay ii tahay haddana farxad aad u ballaaran. halkaana waxay sanadii 1976 maxamed siyaad barre ayaa waxa uu burburiyay xisbigii kacaanka sare isagoona ku bedelay kacaanka ummadda Soomaaliyeed. inkastoo dawladdii kacaanka ee maxamed siyaad barre ay qabatay shaqooyin fara badan haddana waxaa lagu daleeceeyaa dawladdiisa in sanadii 1975
ay toogatay 10 ka mid ah culamaa udiinkii waaweynaa ee Soomaaliyeed kuwaasi oo ka soo horjeestay midaynta ragga iyo dumarka iyo weliba faragelin uu Maxamed Siyaad Barre ku sameeyay diinta Islaamka. dowladda Maxamed Siyaad Barre waxa ay lahayd mucaarad fara badan inkastoo dhaliilahaasi ay lahayd haddana dowladdiisu ayaa waxa ay ka shaqaysay mashaariicyo horumarineed oo aad u tiro badan kuwaasi oo wada gaaray miyi iyo magaalo. guniga gabagabadii daawadayaal dowladii kacaanka ee General Maxamed Siyaad Barre ayaa waxa afgembi ku riday urur la magac baxay USC sanadkii 1991 ururkaasi uu jeedkoodu ahaa inay xukunka ka ridaan Maxamed Siyaad Barre maadaama ay waxyaabo badan ka tabanayeen. Maxamed Siyaad Barre ayaa waxa uu ku geeriyooday magaalada Lagos ee waddanka Nigeria labadii bishii Janaayo sanadkii 1995. guud ahaan daawadayaal intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka gaarka waan uga hadlaynay taariikh nololeedka madaxweynihii jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya General Maxamed Siyaad Barre. barnaamijka anigoo Cusmaan Cabdulla Cusmaan ayaa idinla socodsiinayay waxa ii soo saaray barnaamijka Xasan Cabdullaahi Cabdulle. tan iyo barnaamijkan kiisa xiga intaan dib dambe ugu kulmayno waa Cusmaan Cabdulla Cusmaan iyo Xasan oo idin leh iyo idinka tagin nuurka.